daawadayaal kusoo dhawaada warbixin aan ku eegayno Mareykanka oo xayiraad kusoo rogay Soomaali uu ku jiro Sheekh caanaha. dawladda Mareykanka ayaa xayiraad kusoo rogtay dhowr qof oo Soomaali Kenyaan ah iyo waliba qaar kale oo Soomaali ah sabab la xiriira in ay taageeraan kooxaha argagixisada sida warbixinta lagu sheegay. waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in ay la wareegi doonto hantida dadkan isla markaana ka mamnuucday dadka Mareykanka in ay wax xiriir maaliyadeed ah la sameeyaan shakhsiyaadkan. liiska dadka la xayiray waxaa ku jira Sheekh caanka ah ee Sheekh Xasan Xuseen Aadam, waxaa sidoo kale kamid ah Sheekh Xasan Cumar iyo waliba Xasan Mahad. dadkan ayaa dhammaantood ah Soomaali Kenyaan. waxaa sidoo kale liiska ku jira Cabdifataax Abuukar Cabdi oo loo yaqaan muhaajir Buusa oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo degan magaalada Mombasa ee dalka Kenya. dhammaan hantida dadkan ay ku leeyihiin Mareykanka hadiiba ay jirto ayaa la xanibay. dawladda Mareykanka ayaa sidoo kale liiska madow ku dartay hay'adda Al-Xarameyn ee fadhigeedu yahay magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa bishii Abriil xayiraad saartay Xaliime Aadam Cali oo ah Soomaali Kenyaan kadib markii lagu eedeeyay inay $150,000 ay u dirtay dagaalyahanada Daesh ee ka dagaalama Liibiya, Syria iyo bartamaha Afrika ayada oo marinaysa xawaaladaha.